waxaan idhi waddankan 5 madaxweyne iyo 16 ra'iisul wasaare maraya ee ka rogo haddana saar kaana siib kana saar uun maraya madaxa iyo mijaa iskula jira madaxweynuhu wuxuu leeyahay 19 awoodood buu dastuurka ku leeyahay ra'iisul wasaaruhuna wuxuu leeyahay 4 awoodood iyo 9 uu la wadaago xukuumadda oo odaygeedii yahay uu ku leeyahay 13 madaxweynuhu 19 awoodood maalinta ra'iisul wasaaraha uu magacaabo uu awoodda koowaad leeyahay inta kale oo dhami waxay kaga xidhantay xukuumadda ra'iisul wasaaruhuna 13 awoodood uu leeyahay isaga iyo xukuumaddiisu waxay kaga xidhan yihiin madaxweynaha waa ra'sun ala al-aqab madaxiyo mijinta la isku xidhay nidaamkani inama dhaqayo de inta ra'iisul wasaare la riday iyo soo dhisidoodii iyo waqtiga kullumayna waynu ognahay marka anu waxaan soo jeediyay nidaam madaxtooyo de odayaashii waa joogan labada hoggaan ee dalka yani hoggaanka siyaasadda iyo hoggaanka sharci dejinta ahaa waanu sharaxay marka anu waxaan qabay taariikhda aynu leenahay awgeed inaynu qaadano madaxweyne iyo laba ku xigeen oo ka kala imanaya labadii gobol ee 60kii midoobay ee waqooyi iyo koonfur madaxweynaha isaga waa la dooranayaa labadiisa ku xigeen oo la dooranayaana halkaas ay kala metelayaan madaxweynuhu deecadu bixiyaha Soomaaliyeed buu ku xidhan yahay ama waqooyi noqon karaa ama koonfur buu noqon karaa laakiin laba ku xigeen inay jiraan taariikhda labaad ee aynu leenahay waxa weeye nidaamka beelaha ee 5 beelood aynu hadda u sameysanahay fikirkaygii hore ee taa ahaa ee 2009kii oo gudoomiye maxamed nuur saliyada ay marxaati yihiin iyo hoggaankii dalkuba hadda waxaan ku dul dhisayaa nidaamka 5 beelood waxaan leeyahay madaxweyne iyo 4 ku xigeen aynu qaadan oo 4 beelood ka kala yimaada oo shaqada loo qaybiyo oo madaxweynaha gacan yarayaal u noqda dalkani wuxuu u baahan yahay 24/7 in la shaqeeyo shaqooyinka golaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ayaa madaxweyne ku xigeenadu kala qaadanayaan dabeedna shaqada halkaas ay ka wadayaan mid baan idin sheegaya maalin dhaweyd ninkii waxad nimankan tunka weyn ee Mareykanka dhageysanaysan aan isdhageysanna walaalayaal hadal ma dheere fikirka halkan la kaalaya markay waqtigiina gaadho ninka la yiraahdo Anthony Blinken ayaa dhageysanaysan maalin dhaweyd oo Davos kaga doodayo leh if you are not on the table you are on the menu beelaha Soomaaliyeed 3 beelood oo 23 sanadood ee u dambeeyay on the menu aha waxa ay fursad u tahay inay on the table yimaadaan beelaha miyaan magaca ku dhuftaa afka miyaan ku ballaariyaa waa garanaysaan marka nidaamkan aan dagahayn ee Khadra Daahir waxay ku heestay haddaan reer kuba degayn heestii miyaan halkan ka qaada marmar waan ku yar dhuftaaye marka maasantiin gudoonka malaay eegaya walaalayaalow in aynu salka ka degnayno u baahannahay nidaam madaxweyne iyo 4 ku xigeen oo la shaqeeya aynu qaadano beelaha Soomaaliyeedna way ku niyad samaanayaan wayna ku aamin qabayaan marka anigu halka waxaan soo jeedinayaa madaxweyne iyo 4 ku xigeen in laga dhigo halka la leeyahay madaxweyne iyo ku xigeen kaliya la leeyahay waxa ku xigta hogaamiyaha iyo hogaamiye ku xigeenka waayo sababtaan ku sii duldhisay waxa weeye maanta waa ogtiino madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xasan Xamse Cabdi Barre waxay ku wada joogaan saaxiibtinimo iyo odaytinimo iyo isu dulqaadasho laakiin sharci kuma wada joogaan ra'iisul wasaare hadduu maanta ay yiraahdo madaxweynaha qandhiiri oo xaalad ku fur awoodo badan oo dastuuriya buu leeyahay haystaa madaxweynuhuna hadduu is yiraahdo Xamse isdhaafi awoodo badan buu dastuurka siiyay oo meelo badan isna dhaqdhaqaajinayo marka miyir qab iyo Soomaaliya midnimo lagu wada joogaaye sharciyad lagu wada joogo nidaamkaasi saldhig buu inoo horseedaya xaaladana waan kaga guureynaa waxaanu imanayaa hogaamiyaha iyo hogaamiye ku xigeenka anu waxaan oran lahaa ereyga governor turjumid fiican xildhibaan rooble iyo dadka af Soomaaliga inoogu fiican governor nimanka ha loo yar cayiliyo hadii madaxweyne ma noqonaysaan la yiri ha loo yar cayiliyo governorka turjumid fiican oo ay qaadan karto ha loo sameeyaa soo jeedin la marka ereyga governor bal waxa turjumid qowaanee taa anigu ayaan u bixin lahaa waxaanu imanayaa 51 faqradda labaad xubnaha u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa lagu dooranayaa halka tiraahdeen waxa lagu dooranayaa si toos ah cod qarsoodi ah oo madax bannaan full stop halkaasan markaa ku joojin lahaayo
هل كان دنبات هذين ضمان مواطنين تبوحية شروطها عد بحياها أي نكوفة فاهمنا الدستور كمبادئ لجود بالغو قراء حاجة دنبات حوجها الله يقول يردره أنت قاعد سنة قدومية وحير باي هره لما دقيقة كم قدرنا يوضع نظام كان ليستوين كسينجل كونستيوينسي كانوا إيمانا يا واحد بدن بدو وكي هاي هرنا وحاو قاتي ودن كعراق وإيجي دونتان لما كوني يشنتي حالة باني كيسو قد بين سيدا إنه كلا يبربرين وحكلو آدو قد ما ودن كإسرائيل نظام كا هل دقم الدور شو وين أو حل دبانا ضلتحو وحن بانرو كسو كردية هل كان ليستدا حرن وهان لها أي نكدقنا ليستدا فرن هل أفراد مدحونها يكحيان كانوا واحد زوجي مدحونها يكحيان ندى هجاميها أنا وحنا الجفرنر كوبي كنت في الغد اللي حاد حبناها كتر تميا كراس تقولها وكيل ذا الدولة قبلت كسته وحاتيس توس عود قرصودي أو مدح بنان كدورنا يدمان هالكاتر هذين أنا وحنا نقول لها وإن قبل دور الشل قديكا هذيك لو يستلمية يا مركا قبل كسته لبا قبل يصدق قبل ونوي هيرشبه له حلي بانده waxay u kala jabsayeen ba Soomaha hiiran iyo shabeelada dhexe marka xildhibaanada sidaa loo qeybiyo waxa ku soo baxaan laakiin yaan la isku wada qaadin meesha hadii kala dulmi baa ka dhacaya koonfur galbeed saddex gobol ha loo kala jabiyo marka halka dhamaan xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha hogaamiyaha ama gudoomiyaha tiraahdeen gudoomiyuhu bay dooranaysaa ama gafarnarka gobolada hal kala jajabiyo xildhibaanada sida imika u fadhiyaan bay u kala qaybsan yihiin marka gobol doorashadana aynu sii bilownayno hirgelino taana waxbay ka daraysaa golayaasha deegaanka waxaan qabaa fikirka ah in golaha deegaanka la doorto laakiin duqa magaalada iyo ku xigeenka golaha deegaanku uu iska sii dhex doorto haddii kala duqa magaaladu dictator buu noqonayaa shacab ay doortay yiraahda oo aan la loodin karin waxaan u imanayaa 250 muddada xilhaynta دستورية هو ستوس كارلو دورانيا كحسن قدر كوبيل لا فقدت دي سكوبات وعشان سنة هالكاتير هذين أنا واللي حسنا نور لها وحنسوي شيء دينا يا مدد الحين تا مدحوينها هي برلمان كوين اللي حسنا النقطة سببتنا وحوية وطن سيدنا أوبر بري مدد يسوي يرتب مركبة خلاف سياسات دجالو ربشدو بوق باي منايا مركا هدو تيرم كهدو هجانكو كلا لبا إياه هانيو لبا تيرم ومن اللي حسنا برلمان كنا تيرم كيبل لحسن نضاد أنا وين تاسن كدر صاي هرمر أنت دقالنا هذا دقاليها كواوين أدون كأحد بيجيستو دي أنت حسلوني سياسات لا هذا هاي وأيسال ككفر ده أيو دقاله هو كبعة أمن جودنا هيركلا يحوش اسمه لكن هذه خلخل سياسات تشرو أمن جينا مشوا وكبحيا دقاله هنا وبربريا هل مدون بانكوبيرن وحوجها بقى هري لكن هالكاسون بان عدسنا يا وحوي قضب كا فرخة أفراد قضب كصدق هي كنتن أو صدق هي كنتن أفر بي قف أي محكمة أود ولا أي كل ده حكم كما دنبيس والله حرر الدم بدور الشو وهل كان قف كأن إن لو ديوان قليل عد بيحيى أنا هين أي قضب كهذا ليا inkastoo sharciga doorashada ama diiwaan gelinta cod bixiyaashu uu aad u si faahfaahin doono anu waxaan oranayaa in lagu koobin dambi doorasho oo kaliya fil dambiyeed kama dambayso ku dhacday oo lagu xukumay xilligaas waa uu ka xakameynaya oo uu ka hor istaagaya in loo diiwaan geliyo cod bixiye waa mahadsantihiin waxoogaa waan sii oran lahaa laakiin waqtiga ay saamixi waayay waad mahadsantahay gudoomiye dulqaadka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh labaan jeego haday codsadii